ismaan lahayn dawladdii aad intaa hoos joogtay baa intay idin soo caydhsato qolooyinkii 30 sano laydinku quuqinayay ee laydin lahaa waa cadowgiinna ayaa idin gogol furaya oo idin soo dhaweynaya ismaan lahayn dee maaragtay dhalinyartii meeshaad u dhalatay inta laga soo maaragtay eryado sharci darro oo qori lagaga soo eryado baa garoowe lagu soo dhaweynaya gacmo furan qalbi furan iyo walaalnimo furan wixii samaanta ka bilaabma waxaan qaadanaynaa hadaf hal mid ah aragti hal mid ah calan hal mid ah iyo dal hal mid ah wixii hore iska sheekeehay cabdiraxmaan cilmi oo ka mid ah dhalinyarada caanka ka ah barta YouTube ee deegaanada Soomaalida gaar ahaan magaalada Hargeysa oo uu deganaa iyo kooxdiisa ayaa isaga soo baxsaday Somaliland kadib markii ay cadaadis iyo caburin kala kulmeen xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi sida ay sheegeen. cabdiraxmaan iyo kooxdiisa waxay gaareen hadda magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxayna sheegeen in qalabkoodii laga qaatay naftoodana ay la soo baxsadeen. bal marka hore dib idin xasuusiyo waraysi cabdiraxmaan ku bixiyay magaalada Hargeysa inta uusan ka soo bixin kaas oo kaga hadlayo canshuur ay ku soo rogtay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland oo uu sheegayo inaysan iyaga khuseyn. go'aankaas waxaan u maleynayaa anaga ka YouTuber ahaan inaan wax saameyn ah nagu yeelanaynin waayo ma ogi mana garanayo mana jirtaba xafiis Google ama YouTube uu halkan Hargeysa ama Somaliland uu ku leeyahay ama Soomaaliya haddana ay koonfurta kale Somaliland Puntland wax xafiis ah YouTube kuma laha markan YouTube sameeynay maanan marin nidaam dawladeed oo Somaliland ah oo sharci hay'adaha dawladda u yaala oo naloo keenay oo aan sixnay oo iyaga qayb kamid ah maanan hayn wasaaradda warfaafinta oo go'aanka soo saartay anigoo YouTuber waligii xaydaabkeeda ama meeshada ma gelin leegama yeelin wasiirku ima yaqaano ilama shirin agaasimaha sidoo kale kama diiwaan gashin ID card ima siinin shaqadeedu ismay khuseynin YouTube marka leeyahay cashuurta laga goosanayna waxa iga goostaa YouTube halku ka diiwaan gashan yahay Mareykan lacagta ay soo baxda bilaa hadal ay iyagu ku goostaan Somaliland si guud ay internetka ay uga goosatay cashuurteeda tiyo la kala qaadqaadin social media iyo magarasa ay internetka si guud ahaaneed ay uga goosatay marka xataa addresska markan gashanayo YouTube-ka marka monetization-ka dalban kara addresska ku buuxsanayo addresska Somaliland xataa uguma jirto YouTube laftirkiisa uma diiwaan gashto Somaliland laftirkiisa xataa uguma jirto oo address ay Somaliland leedahay ma isticmaalo account ay Somaliland leedahay ma isticmaalo nidaam magaranaysa ay wasaaradda u yaalay oo aan ka isticmaalmay jirin marka go'aankaasi si guud wax ii saameynaya maaha. cabdiraxmaan iyo saaxiibadii oo hadda si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshihiisa halkan iyadoo ay soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo u badan dhalinyaro. wuxuu ka sheekaynayaa caqabadii ay la kulmeen muddadii ay joogeen Hargeysa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay waraysigii uu bixiyay. bismillaahi raxmaani raxiim tan iyo markii aan warbaahinta gaar ahaan BBC-da aan ka sheegay aragtideeda shakhsi ahaaneed ee ku aadan go'aana maraysan oo xukuumadda Muuse Biixi ay muddo 3 maalmood ah nagu qabatay inaan aqbalkeeda ku saxeexno haddaan YouTuberadan Hargeysa ku sugnaa oo sheegay inuu go'aankaasi uu yahay go'aan dhicis dhalanteeda aan wax dhammaystiran oo dheelitiran ahayn waxa si daba jooga oo ila soo hadlayeen dawladdu way ii soo hanjabayeen war saxaafadda kale soo saareen aniga ila soo hadleen way ii yeereen maaragtay intaas oo dhan hanjabada igu soconayay intaas oo dhan kuma ekaan goor habeenimad ah bay ciidan kolonyo ah ay xaruntii dayaxa marka ay shaqo ka socotay dib u cusboonaysiin studio ayaan ku sameynay ay yimaadeen meeshii bay markii la kasoo duldegeen way fatasheen way baadheen alaabtii kala daadiyay qalabkii qaar bay jabiyeen anaysay raadinayeen nasiib wanaagsan habeenka goobta maan joogin oo waan ka maqnaa
markaa way ka tageen meesha deen waxaa dhacday inamadii kale ee joogay keebka qoriga loogu goolaaftamay ee shoogsanaa ayaa ila soo hadlay oo labadan inan ee iminka la socda ay ka mid yihiin way ii sheegeen xaaladda maanta halka marayso markaa anigu waxaan garowsaday in sharcigii muwaadin iyo madaxweyne lagu kala ahaa sharcigii shacab iyo dawlad lagu kala ahaa in ay xukuumaddu jeebka ku qaadatay kumaan laaban habeenkaa markaa xaruntaydii iyo gurigaygii midna waan isaga soo baxay hargeysa waxaan ka soo baxay iyadoo baadil lagaga haysto qalabkaygii hantidaydii iyo xaruntaydii iyo waxaan intaa kusoo tabcaya anigoo muwaadina hargeysa waxaan ka yimi iyadoo dhulka lagu dhuftay oo la jebiyey rajadii aan intaasoo sannadood aan soo dhisanay oo aan kaga baaqsannay tahriibtii iyo magafihii ay martida u noqdeen khayrkay iyo intay la da'da ah ee rajala'aanta iyo quusta ay dhigeen kuwa maanta aniguna aan uga imi magaalada aan uga soo baxay burcaan soo gaadhay goor habeenimada burco kumaan hakan oo burcadu waa burcadii ee la jiidjiidayey cabdimaaliga codloonkii cadaaladda u cilanaa ee sidaydanoo kale anigana xeedhay mifrey waan ka soo gudbay anigoo baxsad ah oo askarta ka dhumanaya burco waxaan iskugu nimi oo iyaguna iga daba yimid labadan inan oo iyaguna u arkay inaanay jirin meel lagu hadha marka dambe waan soo wada raacnay saddexdeedan waxaan u soo baxnay gaadhi u soo jihaysan dhinaca garow iyo carradii uduga haddaan idin idhaahdo wallaahi farxad bay noo ahay hadday moodayaan dadi inaan ku sugannahay murugo iyo cilkaambi farxad bay noo ahaydoo ilaahay baan mahadnaqanay markii aan ka soo gudubnay kantaroolkii ugu dambeeyey ee uu ka shaqaynayay amarka ciddaan ka soo cararnay ilaahayna waan u mahadnaqnay markaanu garoowe iyo gobtii puntland aan nimi intaa aan cawdeeda bilaa nacfiga ah aan ku sugnayna waxaan dareemaynay farxad waxaan dareemaynay xorriyad qofku ha dhinto si sharaf lah ha u dhinto laakiin qofka in la jiijiito cadaalad darre lagu jiijiito waa la yaabay waxa la yaab igu noqotay wasaaradda warfaafintu waxay tiri 40% cashuurta laga doonayo haddaan idin faahfaahiyo 40% dakhliga ku soo galay bishii baan kaa doonaynaa 40% masheer bay iga doonayeen oo igu yeelanayeen oo meesha mulkiyadda ila lahaayeen mise cashuur baa laga doonayay cashuur 40% weli maan arag sidoo kale waxay dhaheen ID card baan ku siinaynaa oo wasaaradda ayaa amarka iska leh aad youtube-kaaga muuqaalada ku gelinaysid kagana daynaysid oo awoodda maalinkaad u baahatid baa shaqada lagaa joojinaya maalinka waanad wadi kartaa anigu youtuber baanay youtuber soomaaliyeed baanay hargeyso keliya ma daawato waxay daawada cirif ilaa cirif ummadda soomaaliyeed oo dhan igu xidhan iyaga inaan raalli geliyo oo wax anfaca aan u soo geliyo anigu siyaasad shaqo kuma leeyahay entertainment baan ka shaqeeya inaan wax anfaca aan u soo geliyo baa layga doonayaa laakiin anigu telefishinka qaranka hargeysa ma yihi ma raalli gelin karo hargeyso keliya ee waxaan doonayaa inaan raalli geliyo ummad soomaaliyeed oo idil oo aan hayb iyo qabiil iyo najeclaysi iyo nacfi iyo caadifad iyo ceelqabnimo midna aan lahayn ummadda soomaaliyeed inaan si siman aan dhammaantoodaan ugu soo daayo brograamyadooda raalli gelinaya oo iska wada dhex arki karaan laakiin xayisiisu ma noqon karayo guulwade iyo hargeyso keliya waxaan doonayaa inaan anugu barnaamijyada aan soo saaraa ay anfacaan oo ay gaadhaan inanka iyo inanta soomaaliyeed ee jooga cidhif ilaa cidhif deegaan kasta oo soomaali degto ama meel kasta oo soomaali joogo taas baa aniga anfacaysa ID card wasaaradda warfaafintiisa ima anfacayo oona nuga yimi hargeysa haddii dubaabado ciidan ay hargeysa ka shaqaynayaan waxaan joogaa meel xorriyad iyo xorriyatul qowlku uu ka shaqaynayo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaanna iyagaa iga badan dictatornimona waa diid waayahay youtuberadu keligaa ma ahayn ama idinka oo keliya ma ahayn amarku si guud buu ugu dhacay dhalinyarada somalilan ee youtuberada youtubeka ku shaqaysta maxaa adiga dayax ahaan kugu gaar ahaa walaal qofkii dee dulmiga qaadanaya iyo kii diidaya
labaduba sam isaga ismii oo run dhalinyaro fara badan oo youtuberada u jiraan laakiin aan ku sheegay dhalinyaradaas fara badan ee youtuberada jira qaar baa dee laga yaabaa inayna awoodintan anigu awooday oo ah inaan halkan imaado waxaygii oo dhan ka soo dhaqaaqo laakiin carabkii hoosta ka wada qaniisan yihiin way wada ciilan yihiin dadku waxaanay geyn dadku waxaanay rabin ayaa sanka lagaga tolaya wayna wada diidan yihiin laakiin inaan anigu halkan aan imaado ama fikraddan ama go'aankan aan qaatay aniga keligay youtube ahaan shakhsi ahaan dayaxaan weeye laakiin de iyagu go'aanka kale qaadanayaan inay saxiixayaan iyo inaynay saxiixayn iyo inay youtube-nimada iskaga baxayaan iyo inay meel kala tegayaan taasi iyagay u taallaa dee qof kastaana siduu dulmiga markaa jira ama wuu qaataa ama wuu ka dhaydhiyaa anigu se dulmi waan qaadan kari waayo $1 ha ahaatee warqadan waxay ka soo baxday wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafinta intaydan guud ahaan eedayn madaxa ugu sarreeya ee Somaliland tusaale muusoo kale baad eed u jeedisay intaadan eedayn madaxweynaha ma la xiriirteen wasaaradda warfaafinta iyo cidda mas'uulka ka iyo warqadan inaydan intaan bixin karin intaydan sidii goray cawsha kala didin ma la xiriirteen idinku horta marka hore warqadda soo saarayeen anagana lama soo xidhiidhin nooma yeedhin wasaaradda anigu weligii ma gelin wasiirka ma yaqaano agaasime ma yaqaano shaqaaluna ma yaqaanaan sidan hore u sheegay mar haddaan iyagu ila soo xidhiidhina sifa aan anigu ku raadsado warqad shaabadaysan oo amraysan oo laygu yidhi inan yar baad tee wax dawlad soo saartay kama hadli kartid oo saxeex wixii yaalla ma jiraan mar haddiiba ciidani soo weerareen wixii yaalla ma jiraan se markii hore ila soo hadleen iyagaaba ila soo hadlay waan u sheegay waxay sheegeen 40% war 40% tema mashaar baan isku yeelanayna waxay sheegeen ID card war anigu ma Soomaaliyeed baan la hadlaa entertainment baan ka shaqeeya annaga oo gorfeynta iskula jirna inta iska aamusan muddo dhowr maalmood waa kuwa markii dambe ciidanka ii soo diray madaxweynahana waxaan carabka ugu taakiidinayaa madaxweynuhu wasaaraddu say noo sheegtay isaga ayaa amarkan bixiyey wasiirku maaha wasaaradda maaha sida kale cashuurta wasaaradda maaliyadda qaada wasaaradda warfaafinta maba qaataba amarkan soconaya ee 40% dakhliga ka qaadana ID card u sameeya oo kaa u sameeya oo taa ku sameeya oo taa ku sameeya oo marka dambe shaqada ku joojiyana oo amar ka soo baxay madaxweynaha cashuurta laga doonayana waxaan isweydiiyey oo iyaga weydiiyey kulmiyo cashuurta laga doonaya ma cashuurta madaxda guryahooda ubaxyada ka beerta hargeysana ay biyo la'aanta dooxyada uga cabta ma cashuurta hooyada ciilan cadaaladda u ciilan ka oysa iyagana magaranaysa ay dulmiga farxadooda kaga shaqeysa ma cashuurta iyaga oo marka hore aan haysan oo madaxweynuhu laga yaabo 30 sano ka hor markuu dawladda Soomaaliya uu ka baxay ka goosanayay aanu $1 ka haysan maantana uu ka yahay taajirka milyanka haysta iyadoo loo ogyahay inaan habeen dhididkiisa dheefsan cashuurtu waati ma cashuurta oxygen la'aanta isbitaalkii dawladda Hargeysa loogu dhimanayo lagana yaabo carruurtooda in aroosyadooda loo dhigo $100,000 Hargeysa loogu dhigayo oxygen la'aana isbitaalka Hargeysa aanu hal oxygen haysan oo maalin walba naf oxygen ugu baxdo cashuurtu waati si waxa soo dhan loo kabo bidda waxaad laga doonayo inay kabto cashuurta shacabka ka soo xaroonaysa maaha adiguna cashuurtii baad anigu cashuur ma diidin cashuurtaan diiday waxa weeye aniga cashuurta layga doonayo jid u soo sameeyay baan leeyahay war YouTube baan anigu hayso ma war YouTube ma aqoonsano Soomaaliland internetka si gudba cashuurta uga qaadan oo shirkadihii internetka cashuur ka qaadan laakiin YouTube haddaan iminka aynu gallo Soomaaliland ma garanayo address Soomaaliland ma isticmaalo account Soomaaliland ma isticmaalo ma in ahayn dawladdeedu marka hore inay ka shaqeyso ilaa anagu waddanka la isticmaalo Soomaaliya waddanka cashuurta iga qaad ma in ahayn dawladda inay iga soo shaqeyso ee hortaydu aqoonsiga keento oo Hargeysa xafiis ka furtaan ama Google-ka uu garto horta ii garto dabadna addresskii Soomaaliland gurigeyga iyo bankiga isticmaala hatta banki caalamiga Hargeysa kuma yaalo oo aan isticmaala anoo intaas oo dhan qaba oo taariikhka ka baqsaday oo anagu waxaan samaystay shaqo haddana wixii aad soo saartay 40% aan ka qaadaya tan taa cashuur ma aqaan waxaan leeyahay cashuurta aan bixiyo ee bal horta systemkan aad u qaadaysaan ijideeya oo ii sheega oo ii sharaxa oo iga dhaadhiciya marka haddii aan ku qanco iga dhaadhicisaan waan bixinayaa waayo dee institutionkii gabadha markuu media production yahay si guud bay wasaaradda ganacsiga cashuur naga qaata laakiin YouTuber baan cashuurayaa dee ma noqonaysa taasi anigu ma garanayo systemkii lagu cashuuray igana dhaadhiciya baan leeyahay igana dhaadhiciya baa keentay ciidanka
guud ahaan eedayn baad u jeedisay Somaliland iyo xorriyatul qowlka ka jira iyo xisbiga haatan talada haya ee kulmiye iyo madaxweyne xaban ku noqoshada Somaliland rajo noocee baad ka qabtaa wallahi haddaan kuu sheego xaalka Somaliland haddaad garanaysaan askariga Mareykanka caddaanka ahaa muwaadinka madowga Mareykanka ciijinta ku dilay ay naftu ka baxday isagoo lama neefsan karo wallahi xaalka Somaliland shacabka Somaliland ninka madowga ah ee ciijinta ku dhintay ka dhigay xukuumaduna waa ninka askariga ah ee ciijinta ku dilay waxa weeye xabsiyada Somaliland haddaan run idin sheego waxa igu wallahi way buux dhaafeen oo waxa imika ay ku dhowdahay in guriye kala ama meel kale loo sameeyo aniguna ma doonayo inta dubaabado iyo dictator Hargeysa ka shaqeynayo inaan cagahayga dhigo dibna aan ugu noqdo ummadda Soomaaliyeed kala iga badan dhulka Soomaaliyeed kala iga badan ee xorriyadda leh ma rabo go'aankayguna ma aha inaan Hargeysa ku laabano inta dictatorada iyo dubaabadaha ciidanka ay ka shaqeynayaan oo dadka sandulle waxayna geyn loogu khasbayo shalay bay dhaheen dawladdan waxay ka dhalatay dawlad kale oo dulmiday waxaan qabaa dulmiga haddii la sheegayo kan dulmi ka sarreeya inaanu Afrikaba ka jiro haddii la yiraahdo lacagta YouTube-ka aad cabashadiinu tahay in 40% aad bixisaan aad ka cabanaysaan la yiraahdo waa la kansaray guud ahaanba diyaar muutiin inaad ku shaqaysaan markaa Hargeysa go'aankaygu waxa yahay Hargeysa kuma laabanayo mana tegayo waanan arkaayo dawladda aniga ay qancin kari weyday ii sheegi kari weyday waxaan iga doonayso go'aankaasna inaanay ka laabanaynin qancis kalena inaanay ila imanaynin waan ogahay saaxiibadeedii kale ee aan ka imi inay maaragtay iyaguna ay xaaladan oo kale ama tan aan ku sugannahay oo kale aan kaga nimi iyaguna tukataran ay ku sugan yihiin laakiin nin walba waa halka uu joogo waa xaaladdu siday maaragtay ugu saasho waxaan doonayaa halkan inaan fariin uga diro saaxiibadeedan ka imi iyo asxaabteedii iyo qoyskaygii waxaan leeyahay annaga ha noo warwarina war annagu waxaa joognaa Puntland Garowe oo dad goba ciddan si u warwarayna waa iyaga oo waa idinkan idin warwarayna waan ognahay xaalka iyo xaaladda aad ku sugantiin waxaan ogahay in laydinku xadiiso caadifad iyo cuqdad ciilqabnimo aan habeenna laabihiinna ama laabtiinna Soomaaliya u gelin waxaan ogahay meesha laydinku hayo waxaan ogahay beentii 30 sano laydinku sheekeynayay inay maanta ku soo afmeerantay madaxweynaheenu diyaaradu raaca ciddan u warwaraya waa ciddaas aniga dawladda kulmiye ama dawladda Muuse waxay ku guuleysatay in qalabkaygii ama hantideedii ay la wareegto laakiin kumay guuleysan in qofnimadeeda iyo caqligayga Soomaalinimada ku ahay in la wareegto aniga ilama wareegin anaguna anigaan ahay waan jiri doonaa anagu nimadana waxaan doonayaa u dhabar adayga way iman doonaan dalaaro baabaduhu ay dhacaan idinkuna aad dhoola cadaysaan intaasun baan ayagana aan kula dardaarmaya saaxiibadeedii kale aan ka imi waanan ogahay wallahi xaaladda adag ay ku sugan yihiin oo aanay hadli karaynin haddii aad aragtid dad comment wax ku comment karanaya hadal qalafsan wax soo qoraya hadal qalafsan ama aamusaya oo qaadanaya wax qalafsan waan garanayaa meesha waan dhex joogay wallahi wax laga yaabaa yaqiinta uu wax ku qoriyo inaanu ayna ku dhex jirin laakiin ay khasab ku tahay keebka qoriga ee xagga dambe laga hayo ay khasab ku tahay kaaraha hore ee hortaagan ay taasi ku kalifayso laakiin iyaga haddii si xorriyad ah inta la dul istaago loo weydiin lahaa cidda yihiin iyo waxay yihiin waxaan ogahay inay wax badan ay meesha ka bixi lahay guud ahaanna waa naga intaa sheekadii gaarka ahayd ee ku saabsanayd Cabdiraxmaan Cilmi oo ah wiil dhalinyaro oo caan ka ah barta YouTube-ka iskalana barta YouTube ee Dayax Films kaas oo uga soo cararay deegaankiisii kadib markii uu cagajugleyn iyo sidoo kale caburin kala kulmay xukuumadda talada haysa waad ku mahadsantihiin daawashadiina barteena YouTube-ka ee Rad Production fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar oo ka mid noqo asxaabtayda halkan ku xiran mahadsanid